Assalaamu calaykum. Videogan waxaynu uga hadli doonaa sida website-ku u shaqeeyo isuguna xiran yahay. Dhammaadka videogan waxaad baran doontaa sida HTML, CSS, JavaScript u soo saaraan page qurux badan. Sidoo kale waxaad baran doontaa sida web pageska looga keeno internetka inay kugu yimaadaan adiga kombiyuutarkaaga. Ka hor intaynu ka hadlayn HTML iyo sida ay isugu shaqeeyaan, aynu ka hadalno markaas sida website-ku u shaqeeyo. Component-iga ugu muhiimsan ee website-ku waa web page files oo ah HTML, CSS, JavaScript, images iyo weliba videos. Intaas oo la isku daray ayaa waxay go'aan ka gaaraan sida website-ku u shaqeynayo una ekaanayo. Component-iga labaad waa server. Server-ku waa computer ay ku kaydsan yihiin dhammaan fileska loo baahan yahay si website-ku u shaqeeyo. Server-ku kaliya waxaa loo adeegsadaa in fileska web pageska ay u soo gudbiyaan web browser-ka. Aynu ka hadalno web browser. Component-iga ugu dambeeya waa web browser. Web browser-ku waa program ku rangareysan markaasi kombiyuutarkaaga amaba mobile-kaaga kaasoo garanaya sida loo soo saaro web pageska. Intaas kadib aynu u guda galno markaasi saddexda file ee ugu muhiimsan web pageska. HTML oo laga soo gaabiyo Hypertext Markup Language waa aasaaska website-ka. HTML waxay isugu jirtaa title, qoraal, sawirro. Haddii website-ku guri ahaan lahaa, HTML waxay noqon lahayd albaabka ama daaqadda amaba dhammaan agabka loo adeegsado si gurigaas loo dhiso. CSS oo laga soo gaabiyey Cascading Style Sheet. Caadi ahaan website-ka waa lagu samayn karaa kaliya HTML balse wuxuu noqonayaa mid aan soo jiidasho lahayn aanan qurux badnayn. Halkaasi ay imaanaysaa marka CSS. Nidhaahnaba haddii website-ku guri ahaan lahaa, CSS waxay noqon lahayd markaasi kalarka loo yeelay daaqadda amaba albaabka. File-ka ugu dambeeya waa JavaScript. Website-ka waa lagu samayn karayaa HTML iyo CSS balse ma lahaanayo wax functionality ah sida inaad button ku dhufato oo page kale kuu furo iyo weliba messages kuu soo baxo iyo weliba inaad control karayso website-kaaga meesha uu furayo iyo meesha aad gelaysaba. Hadduu website-ku guri ahaan lahaa markaasi JavaScript waxay noqon lahayd markaasi guriga albaabka oo la furayo, la xirayo, sidoo kale daaqadda oo la furayo, la xirayo. Hadda waxaan fahnay HTML, CSS, JavaScript iyo sida u shaqeeyaan. Balse sidee buu web pageska server-ku kaaga yimaadaa? Arrinkan waxaa qabta HTTP oo laga soo gaabiyo Hypertext Transfer Protocol. HTTP waxay la mid tahay sida adigoo qof su'aal weydiiyey oo yiri oo kale ma fiican tahay asiguna uu kugu jawaabo waa fiicanahay. Si la mid ah HTTP wuxuu weydiiyaa server-ka file qaas ah. Server-kuna wuxuu ugu soo jawaabaa file-kaas. Website-yada badanaa waxay adeegsadaan HTTPS oo iyadana laga soo gaabiyo Hypertext Transfer Protocol Secure. iyaduna waxay u shaqeysaa sida HTTP balse information-ka ay isku gudbinayaan web server-ka iyo website-ka ayaa ah encrypted amaba mid kaliya labadooda arki karayaan. Component-iga ugu dambeeya waa domain name resolution. Domain name resolution waxaa laga wadaa in domain nameska sida google.com, youtube.com loo bedelo markaasi IP address. Serveradu ma garanayaan domain nameska magacyadani ah, sidaa daraaddeed waxay u baahan yihiin in loogu bedelo IP address. Waxaan ugu bedelayaa web browser.